waxaan beelka giigsan iyo kabaha gadafta uga xidhay waxaan guraha habeennimo u guclaynayaa yeengayga ugu meersanahay koruu dadku seexday badi albaabkana soo gudbeen waxaa gabadanada iyo jubahaan kala go'ayn guryaay hor taagaye anigu gaadhka u hayaa dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan koruu dadku seexday badi albaabkana soo gudbeen waxaa gabadanada iyo jubahaan kala go'ayn guryaay hor taagaye anigu gaadhka u hayaa dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan halkan maanta waxaan isugu nimid taliya qaybeedyadii gobolladoo dhan baa jooga ninka ceeri gaaban looga yeedha ama laascaanood looga yeedha ciyaar maha ninka boorama looga yeedha ciyaar maha lixda gobolee waaweyn qaybihii taliya qaybeedyadii qolo walba waxaa ka jooga 5 nin taliyihii qaybta taliyihii CID-da taliyihii laanta wardoonka taliyihii saldhigga dhexe iyo madaxii baadhista ama qaybta ama saldhigga dhexe jooga ciyaar maaha waa mishiinkii dhaqaajinaya qaybta weey ma aha inta gawaadhi soo raacdeen hargeysa iska timaadeen waxa loo mishiinka meesha dhaqaajinayay unitka waxa loogu yeedhay 3 cisho dhinacna waa wax ka kooban iska turxaaji moobilka dhinacna waa wax ka kooban oo 3 cisho ka kooban dhinacna 3 cisho hadaa soo jeed sameeysan waa cilmi weyn oo idin anfacaya ayaa qaadanaysa koow horta maxaa waa maxay muxuu ciwaan ku saabsan nimanka cade halka fadhiya oo boob la yiraahdo ingiriisa iyo qolada kale halka fadhiya waa maxay xigmadu qodobkooda waxa weeye sideeba malta ajas sideebay u wada shaqeynayaan waxyaabahan kala kaankaanka ee ciidanka booliska dhexdiisa ila qaybo kala wada kaanayno haw imika CID-du gaar bay u shaqeysaa wardoonku gaar buu shaqeynaya booliskii kale gaar buu shaqeynaya sideeba malta agency-gu ay u wada shaqeynayaan collaboration for job sideeba loo sameynaya oo shaqadu ku hagaagayso oo sirtii oo dhan nin walba sir buu hayaa nin walba shaqo hayaa nin walba warbixin buu hayaa waxa sidii loo kulmin lahaa loo wada shaqeyn lahaa taas waa qodobka koobaad qodobka labaad sida maaragtay terrorismka looga hortago iyadana waa talabaad sideeba crime scene-ka goobta dambigu ka dhaco sideeba markiiba loo maareynaya dambigii loo baaraya hawshii wax looga qabanaya ila waxa in badan laga ordaayo inuu yiraahdo had iyo jeer waxaan yiraahnaa arinta inoogu daranay in haysataana ay tahay kiisku baaraha saldhiga ayuu ama ka toosaya ama ka qaloocanaya haddaynu dhammaanteen qodobka fahamno baaruhuna wuu is ilaalinaya taliyaha saldhiguna baara wuu ku sii ilaalinaya taliyaha qaybtuna 24 saac uu dul taagnaanaya halka foojignaan dheeraad inuu wada qaadan hadii fahamno kiisku hadduu baaraha ka qalloocdo madaxweynuhu ma toosin karayo sababtoo ah kiis la soo diyaariyay oo la soo dhisay oo cadeyma la soo raaciyay oo la isku soo dubuqday heede ma toosin karayo ciidama toosin karayso haddaan marka hore la toosin marka si aanay taas u dhicin taana meesha insha Allah lagu baran doona waxyaalo muhiimidiin ah xigmadeena weynina waxa weeyaan shaqadeenu marka dambe upgrade inaynu sii samayno oo updating aynu samayno aqoon badan oo boolisiina uu jirtaa way idinka buuxdaa laakiin xusuus in upgrade la sameeyo oo wixii aynu kolba update samayno seminaar koobano imika 7 cisho waa laga dhigi karaa laakiin 3 cisho waxa looga dhigay maadaama taliye qaybta sanaag iyo kii laascaanood iyo kii ceeb burco iyo kii wixii wada fadhiyaan ayaa 3 cisho wax ka badan meena ka soo maqnaan karin shaqadii saasa loo soo gaabiyay laakiin waa 3 cisho xigmad weyn xambaarsan laba qodob marka iga dardaarana haddaynu maanta halkan fadhino fursad baan ka faa'iideysanayaa dhinacna dardaaranka dhinacna amarka waxaan doonayaa
inaynu dhammaanteen awoodda isugu geyno saldhigyada dhammaanteen awoodda aynu isugu geyno saldhigyada taliyo qaybeedow midhkaa fahan bulshada halka isku keen xidhaa waa saldhigga bulshada halka isku keen xidhaa waa CID-da bulshada halka isku keen xidhaa waa traafiga laandheeraha iyo aabbaha meeshuna waa saldhigga ee ugu muhiimsan saldhigga dhiban oo dhan baa maalintii imanaya haddaynu saldhiggaa awoodda saaro oo relationshipka dadweynaha inoo dhexeeya hagaajino oo qofka dhibanaa aynu akhlaaq ku soo dhaweyno oo baahidiisina aynu ka jawaabnaynu degdeg markiiba uga jawaabno kiiskiisana cadaalad ugu baadhno qofka maxbuuska aynu haynana si wanaagsan u qabanno oo akhlaaqaysan oo meel nadiif aynu ku xidhno oo ehelkiisa aynu tusno oo hadduu xanuunsado dhakhtar geyno oo aynu xaaladiisa ka warhayno oo dadku waa qof dhibana ah iyo qof maxbuusa weeye fiir ninka halkaa bannaankaa iska joogaa fiir baa ku jira biniaadamka human being waxa la yidhaahdo qofka dareen baa ku jira hadday bilaaya kuhasho qof kastoo bilaadaya xaguu ku cararaya saldhiggaa qalbigiisa ku xidhan hadduu saldhigiba aanu hagaagsanayn oo ila waa meeshuu biniaadamka kala kulmayeen dee muxuu qofku markaa bilaayada i gaadhsiiba unaya isagoo dhibaataysan marka qodobka aan doonaya dardaaranka weynigee had iyo jeerna qodobka waa ku celceliya booliskeenna waxaad moodaa inuu kor u kacay laakiin waynu ka dhutinaynaa saldhigyada inaynu runta isu sheegno weeye saldhigyada dib baynu ugu noqonaynaa baadhista dib waana baadhayaasha baadhahana taliyaha saldhiggaa xukuma taliyaha saldhiggana taliyaha qaybtaa xukuma taliya qaybtu yuu habeenkii seexanin ilaa uu ogaado maaragtay ilaa uu ogaado uu registerkaa eego waxa u xidhan iyo mid waliba wuxuu ku xidhan yahay subaxdiina waa inuu eegaa saldhigyadiisa waxa xalay soo kordhay